waalid u fiirso wada hadalka iyo kalsoonida iyo jacaylka ilmahaaga iyo adiga idaga dhexeeya wuxuu kaga badbaadaa ilmaha dhammaan duruufaha nolosha. waan ku celin wada hadalka kooban, jacaylka aad tusto, kalsoonida aad tusto, wuxuu ilmahaagu kaga gudbayaa dhammaan duruufta uu wajahaya nolosha. qur-aanka waxaan ka baranay nebi yuusuf iyo aabihii nebi yacquub muddo yar bay wada joogeen. waa markuu yaraa, intii buu yaraa in yar un bay wada joogeen, waayo isagoo ilmo yara waa ka walaaladii intay qaateen ceelka ay ku rideen. muddadaa yaray wada joogeen waalidku ee nebi yuusuf iyo aabihii jacaylku ka dhexeeyey, ee riyada u sheegayay, ee isna u waaninayay, uu jacaylka ku korinayay. intaas ayuu kaga badbaaday waxyaaba badan. muxuu kaga badbaaday? kow, waxyaabaha burbuya da'yarta maanta oo dhan trauma waxaa la yidhaha uurku taal. traumada waxay keentaa depression, waxay keentaa stress, waxay keentaa qofka low self esteem inuu wax qabsan waayo. lambar labo waxaa la yidhahda child trafficking, ilmaha la iibsado, meelaha laga qaato, sida la doono laga yeelo. lambar saddex imprisonment, xabsiga dhallinyarada wuu burburiyaa, gangs bay noqdaan, behavioral disorder, dabeecado cakiran bay la soo baxaan, dhaqamo inay wax dilaan oy wax babaan bay ka soo qaadaan. sidoo kale in laga dhigo qofka criminal, qof dembiile ah. waxaasoo dhan nebi yuusuf wuxuu kaga badbaaday. qur-aankaasaan ka fahmayno maxay? wada hadalkii, jacaylkii, kalsoonidii, communicationkii isagii aabihii ka dhexeeyey. u fiirso, ta koowaad traumu kaga badbaaday. walaaladii markay dheheen ma dilnaa mise ceelkan ku ridnaa, ilmaha yar ee walaaladii uu ka filayay inay ilaaliyaan uu arko iyagoo korkiisa isku wada haysta oo leh ma dilnaa waxan yar mise ceelkan ku ridnaa, waa trauma. suuqaa la keenay, daduunan garanin baa iibiyey, dad kalea laga iibiyey. waa child trafficking waxaa la yidhahdo maanta. waa la kala iibsanayaa ilmo reer layaqaan ka yimid, nebi uu dhalay, dhabta lagu hayay, aabbihii ku indha kuulan jiray, la jeclaa, waa maanta dad uunan garanaynin xuduudda ku kala iibsanaya. ka waran marka child trafficking. lambar saddex waa kii xabsiga uu galay, yaa saaxibiyo sijni arbaaban mutafariquuna qur-aanka suu tilmaamayo, waa kii xabsiga ku jiray. xabsigii markaa masar ma ahayn runtii meel rehabilitation iyo in si fiican wax lagugu sheego aad ka filaysa ma ahayn. waynu garan karnaa xilligaa iyadaa masar. xabsi wuxuu ahaa la isciqaabo oo qofku ku burburayo. haddana saasoo tae xabsiga isagoo ku jira maxay ku yidhahdeen dadkii xabsiga kula jiray? innaa naraaka min almuxsiniin, waxaa tahay qof aad u wanaagsan. maxaa ku xigay? waa tii haweenaydii uu qabay ninkii markaa mas-uulka ahaa ee maaragtay ummadda casiiskeeda ahaa markaa maaragtay ku been abuuratay. waata odhanaysa maaragtay maxaad u malay nin reerkaagii damcay, waata haddana la xidhay. u fiirsa marka, waa waxa maanta la yidhaahdo sexual harassment. waxaa lagu sameeyey nebi yuusuf, waxaa lagu sameeyey child trafficking, waxaa lagu sameeyey attempt assassination. wuxuu arkay trauma, wuxuu arkay xabsi, wuxuu arkay in lagu been abuurtay, wuxuu arkay magaalada dhanoo ka wada sheekaynaysa. ilmaha muddadii uu yaraa aabihii intuu la sheekaysanayay ayuu kaga badbaaday. la sheekayso ilmaha, wax u sheeg. qur-aanku midaas inuu tilmaamaya. janaalkan waxaa la yidhaha waalid legacy, fadlan la socda. ilaahay subxaana wa tacaala awlaadina xifdiyo. waalid legacy subscribe dhaha, sheer gareeya. wasalaamu calaykum waraxmat